daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo warbaahinta Arabsiya News ay la yeelatay Ibrahim Caydiid oo ah gudoomiyaha ururka Suti Gaashaan oo inta badan ka hadla dagaalka lagu soo qaaday Somaliland iyo dhaqdhaqaaqyada kooxaha huwanta ah. Ibrahim ku soo dhawow warbaahinta Arabsiya News. waan dhawahay Abdishakuur Haybow adiga iyo Arabsiya News baan salaamaya sidoo kale asxaabta kale ee dhageysan doonta ayagana waan salaamaya waan dhawahay. waxa baryahanba aad loo hadalhayay ururka Ictisaam miyaanu hore dalka u joogin maxaa maanta ku soo kordhay? Abdishakuurow sidaad sheegtay baryahanba aad ba social media iyo warbaahinta looga hadalhayay ururka Ictisaam laakiin ma hadda urur ninka lagu cusub oo imka bilaabmay sababta loo hadalhayaana waxa weeyaan inuu active yahay oo isagu uu shaqeynayo oo ismuujiyay oo awal wuxuu silent buu ahaa oo hoos buu shaqeynayay laakiin hadda uu soo wada baxay marka sababta loo hadalhayaa waa sababta haddaan taariikhdiisa wax yar ka kooban ka idhaahdo ururkan markii horena nimankii al-Ittixaad ahaayee doonayay dhulka Soomaalida inay xoog ku qabsadaan ee ku fashilmay dagaaladii ka dhacay gobollada bariga ee Boosaaso halka kuwii deegaanka Soomaalida Itoobiya ka dhacay kuwii koonfurta Soomaaliya ka dhacay nimankii isku dayay inay qabsadaan ay ahaayeen markii dambana ayagii ururo kaleba waxay ku midoobeen magacan Ictisaam. Ictisaamna waa urur ballaaran oo owneriska runta ay yihiin nimanka daarood marka aan xaqiiqooda hadalno qolada hawiye ku jirtay iyo qolada isaaq ku jirtay Soomaalida kale ku jirtaana waa taabiciin kuwa taabacsan oo ay kuwaas ku shaqaystaan xaqiiq marka lagu wada hadlo waana urur si hoose u shaqeynayay oo madaariska iyo ganacsiga haddii alla ku rooyay xoogga saaray inay dhaqaale lacag wareegta ay sameeyaan oo kolba cid lagu maalgeliyo lagu soo kiciyo oo ay dhaqaalaha wadanka gacanta ku dhigaan Soomaalida oo ay madaariska gacanta ku dhigaan ardayda soo baxaysa ay wax ku yeeshaan magarasa mustaqbalka qaar ay soo rabeeyeen arrintaas ay ka duulayeen imika laakiin way soo baxeen oo dagaalkan laascaanood oo ay qayb weyn ku lahaayeen ayaa fashiliyay dagaalka laascaanood markii uu ka dadka u mahadnaqayay wasiirka warfaafinta reer Puntland ururka kaliya uu soo hadal qaaday ee mahadnaqa uu ku daray wuxuu ahaa ururka al-Ictisaam waana niman siyaasiyiin sida ayagu ay sheegeen oo raggan aynu wada arkayno in qaar saadiinta u haysano ee qaar nimadeena aynu u haysano ee qaar siyaasiyiinta aynu u haysano ee qaar xildhibaanada aynu u haysano ee qaar culimada aynu u haysano waa niman ururka ka tirsan oo xilal wada haya nimaad suldaan u taqaanaba barsaaba nimaad haddii alla ku rooyo caaqil u taqaanaba haddii alla ku rooyo yahay maayara imika rag aanad aqoon baa maayarka burca noqonaya ama ka Hargeysa noqonaya sidii uu sheegay ninka lagu raahdo oo runta ka sheegay Fahad Yaasiin governor baanay buur barsaab baanay buur markii la weydiiyay halka ka tahayna ma sheegay buur marka waa nimankaas xilalka qarsoon haya waa shadow government inagu dhex nool oo xilal haya oo urur siyaasiya oo hadana diinta ku soo gabanaya weeyaan culimo badan oo aan ku jirin Ictisaam ayaa jirta oo ayagu siyaasadda barika ah laakiin nimankan waa urur siyaasiya oo doonaya mustaqbalka dalka inay qabsadaan waxaana fashiliyay kuwii Somaliland dhex joogay hadalhayntan keenay waxa weeyaan dagaalka markii hore ee la bilaabayay ee la gala dagaalka lahaa ee la fadwoonayay ee jihaadka laga dhigay dhul nabada oo nabadi ka jirto way taageersanaayeen markan imika Somaliland ilaa hadda aan tallaabo qaadin la diyaar garowgeedana waxay ogyihiin in awood lagu muquuninayo dalka inta ay qabsadeen huwantu marka waa ka hortag libin baa haysan dalkii barba haysataane barka kalena qabsataane ka hortaga weeyaan marka niman dagaalamaya marka sida loo hadalhaya waa sida shicibkeena uu ku baraarugay aadna way fahmeen iyaguna way u qaadan laayeen in la fahmo marka waa sidaas aan ku soo koobi lahaa su'aashan.
ibraahim waxaad la socotaa in warbaahinta uu ka hadlay firdhiye oo weliba dowladda ingiriiska u hanjabayay sidoo kale wasiir fiqi oo hore u taageersanaa khaatumo ayaa isaguna ka soo horjeedsaday oo weliba firdhiye duray maxaa isbedelay ayaad isleedahay waa runtaa wasiir fiqi oo hore aynu ogeyn hadalladiisii nasarcaadka ahaa ee ku taageeray shalay afkan ku hadlayay sidoo kale firdhiye niyad jab ayaa ka muuqday hadallo aan meel loo meel dayin oo qof dee inuu mas-uul ahay oo aanu ku hadalla uu ku hadlay oo hanjabaad uu ingiriiska u hanjabayaa waxaana ku tusaysaa aqoonta ku jirta iyo caqliga ku jira inta uu leegyahay xitaa wuxuu qarsan kari waaye argagixisnimadiisii dowladda ballaaran ingiriiska ayuu xoog ugu hanjabayay isagoo itaalkiisu aynu ognahay yacni waxay muujinaysaa aqoon darro iyo argagixisnimo waxa keenay inuu ingiriiska u hanjabana ingiriiska iyo maraykankuba waxay u sheegeen inay laascanood somaliland tahay khaatumo iyo ss wax la dhaana jirin boolisigooduna reer galbeedka waa in hubka loo furay soomaaliya ay dowladda soomaaliya xasan sheekh ciidamo buuxiye kuwii ajnabiga ay samaysato oo deegaanada ka soo jeeda oo kaalintii kuwa ajnabiga dhawaan bixi doona ay buuxiyaan oo malaayin doolar lagu xoojiyo oo hub lagu xoojiyo oo dowladda xasan sheekh la iska garab taago oo maanta ka sifaysay al-shabaab gudaha muqdisho intii kalena ku daba jirta somalilandna sidoo kale waa arkaysay maraykanku iminka inuu dahirgeliyey arrintii laynagula dagaalamayba taasina waxay keenaysaa in somalilandna la dhiso oo ciidan ahaan iyo hub ahaan ba loo dhiso oo labada quwadood ee somaliland iyo soomaaliya aan cid u dhaxayn kabacdina la wada hadashiyo oo shir loo qabto oo somaliland nafti laga qaado siyaasadda reer galbeedku ama maraykanka iyo reer yurub waa taa maamul khaatumo la yidhaho jirayaana ma jiro somaliland xuduudeeda ku noqonaysa dagaalka bacdi wada hadalku iska iman doona marka xaqiiqda dhabtii waa taa tay soo ogaadeen maantana waa taa beentii iyo nasarcaadkii shacabka la isugu garaacayay waxaan jirin bay noqotay fiqigana yimi fiqi siyaasadda maanta socota ayuu de ku xisaabtamaya hadalkii firdhiyana ee uu ingiriiska ugu hanjabayana dee wuu duray uu la yaabay marka markii hore khiyaali buu shacabka ugu garaacayay xaqiiqdu laakiin waa taa maanta markaynu eegno xaaladda amniga ee mandaqada iyo tan gudaha somalilanba ibraahimo waad la socotaa in dagaal ka soo cusboonaaday deegaanka ceelaf weyn sidoo kale waxaa jira ammaan darrada badda cas ka bilaamatay arrimahaasi bal maxaad nooga iftiimin kartaa ama maxaad kala socotaa dagaalada ka soo cusboonaaday ceelaf weyn ama darar weyne waa qaar la curinayo la abuurayo dowladda somalilandna way ogtay aniguna waa ognahay cidda imika dagaalka ridayna waa ninka buurmadoo la yidhaha lacagtu soo diray iyo ciddu u diray iyo wixii o dhan waa la ogyahay wax qarsooni ma jiro buurmadowna dagaalka uu somaliland kula jira dee nin qarsadayba maaha maalintuu soo baxayay shirkii habeenkii uu ka dhex hadlayey meesha lagu idhaahdo london ee xafladda ay qabsanayeen reer wadani dee kuwii ciidamadii somaliland ee gacanlibax lagu laayayna wuu hambaliyeeyo wuu ammaanay dadkii laayay waxaanu ballan qaaday in halkaa laga sii wado hawsha in markaa horena waa kii dee inoogu sheegay inuu ciidamada qaranka dhex galayo oo uu huwanta la socdo oo dee markaa qandaraas buu ka soo qaatay huwanta waana fahad yaasin baanu u galay ninkani isaga iyo ninka lagu dhaha coldoon labaduba deegaanka ay ka soo jeedaan ay u dhasheen isku dirkooda iyo isku dilkooda ka shaqeynaya kanna sababta isagaa lahaa soo cusboonaaday buurmadow baa leh haddana isagoo taa sameeyey oo la og yahay oo la daba socdo oo raadkiisa la gurayo ayuu facebooka ku soo qoray somaliland baa ka dambeysay dowladdeeda caqliga bini aadanka miyaa lagu ciyaari karaa somaliland maxay ka faa'iidaysaa ka seexan maayo ninka somaliland xil hayaa meel gudihiisa oo dagaal ka dhaco ka ugu naxdinta badan buu noqonaya yacni markaa waa
laascaanood bayna ogeen inta afka loo soo duubtay oo dadkoodii la laayay in la lahaa isaaq baana laayay iyo somaliland baana laysay iyadoo isaaq reer qulo isaaq aan laascaanood deganayn marka waa tii oo kale uun waa indha adayg arrintaas waxay ku qorantay buurmadow xaqiiqa marka lagu wada hadlayo labada nin ee dagaalka ka shaqaynaya ee qandaraaska huwanta ka soo qaatay iyo fahad yaasiin iyo waxa la halmaalana waa ninka lagu yidhaahdo coldoon oo isticmaalaya caaqal shaar yar iyo ninka lagu yidhaahdo buurmadow waana iska dawoobi doontaa oo dadku dagaalka uu ku jiraa maanta dalka lagu difaacayo kanna waa rag baa ilaahay u sameeyey dowladdu way xallin doonaa baabuur huwantu ay kala soo degtay dekadda berbera oo la qabtay arrimahaasi ibraahimow maxaad xog ka haysaa cabdishakuur haybow gawaadhida bullet proofkeed sheegayso dad warbaahinta ka hadlayay oo si qaldan uga hadlayeen xog badan ka haynin baan arkayay oo 4 gaari ceergaabo laga soo qabtay uun sheegayay sida arrintiisa ma ahayn gawaadhidan intaanay dalkaba imanin si gaashaan way ogeyd xogtoodana way gudbisay dowladduna way ogeyd waa la sugayay markii ay yimaadeen waa la xanibay gawaadhidaas dad shicib baa lagu soo qoray lacagtii laakiin huwantu lahayd ee ku xanibnayd imaaraadka si loo soo dabare loo garan waayay baa la soo geliyey waxaanay ku dhaceeda yeesheen meeshii la dagaalamayeen inay gaadiidka noocaas iyo lacagta intaa leeg soo marsadaan taasi waxay u tahay caddayn inay wax badan oo horena marsadeen waxaanay taas markhaati u noqonaysa waxa baa la qabtay rasaastii waxa la qabtay shidaalkii waxa la qabtay dawadii waxa la qabtay wax badan oo lagu dagaalamayay Soomaaliland hadda isla Soomaaliland gudaheeda laga rarayo ama la marsanayo marka nimanka u soo bareeray inay dekadeeda wax kala soo degaan meesha la dagaalamayeen waa niman magaranaysa haystay kalsoonida ay wax kula marsanayaan oo ku kalsoona meesha taas waa qodob markan dambe iyadoo xanibeen gawaadhida baa la isku dayay haddana inta waraaqo foo jiray iyo si qaldan lagula baxay ayaa lala baxay oo dowladdu haddana ay ku soo qabatay ceergaabo way xanibayeen wax yireen lacagta aan ku sheegay tirada inta cadadka inta laba ay ku fadhidaa baaritaankoodii iyo go'aankoodina uu socdo ka hor dhici maayo laakiin waa taa marka nimankani waa niman indha adag oo wax waliba ka suuro galaan hadda waxa soo noqotay marka ba xalay la afduubay xeebta ku beegan Boosaaso ayaa laga afduubay argagixisanimadii baa haddana burcadnimo lagu darsaday taasina waa soo dadajinaysa in xeebta berbera uu Mareykanku degdeg u yimaado isagoo oo ay dariiqaas baabal mandalku halbowle adduunka u yahay aan laga maarmi karin gacanta halkan xuutiinta ay waxa doonta ka sameynayso oo ay qaar qarxisa dhawaan qaar ay afduubtay kuwana halkan Daacish oo buurahan galgala iyo halkan Boosaaso cashuurta ka qaada ayaguna looga baqayay inay afduubaan oo taymka kuwa la afduubay waxa loo warbaahintu qoraysaa in xaggaas ay Soomaalida xagga deegaanada ay degta ay yihiin marka arrimahaas oo dhan baa socda oo indha adaygaas socda gaadiidka aad weydiisayna waa kuwa aan kuu sheegay waa 8 hadda ku xaniban Hargeysa huwantuna lahayd ibraahim ugu dambeyn shirkii beesha habar jeclo oo muran iyo qaybsanaan badan ku keenay odayaasha reerkaasi oo adiguna aad ka dhex muuqatay halkuu maraya waa runtaa shirka beesha habar jeclo muran iyo qaybsanaan buu keenay baa tiri horta waa la kala baxaya buriyo biyaan loo kala baxaya oo la isdhex fadhiyaa sida aan kuu sheegayna waa lagu dhex jiraa Somaliland reer walba dad baa ku dhex jira urur diimeed oo urur siyaasadeed oo doonaya dalkan inay qabsadaan raggaasi reer walba way leeyihiin habar jeclo qura maaha xisbiyada ku jiraan ganacsatada ku jiraan hoggaanka dhaqanka ku jiraan wayna xusan yihiin nimankaasi waa niman ayagu isu dhaarsan oo dhaartana isu jiidiyo waliba ninka moodaya markaa odayga ama ninka garanaya inuu reerkoodii yahay uu ka dhasho reerkoodii laakiin maaha ballanka cid ay la soo galeen waa ururka ay daacadda u yihiin waa ururka ay ku jiraan
uma hadda cadda reerahan ay sheeganayaan ee ka dhasheen hadday ballan la galaana ballankaa ninka rumaysta walaynaan habeen jirin tusaale la siinaya ninka lagu yidhaahdo xasan sheekh cali warsame maalintii reer yoonisku shirayeen shirka reer yoonisku uu fadhiyey reer yoonis waxay isla qaateen inuu ka soo jeedaa isagu difaaca dalkooda iyo deegaankooda iyo inay dagaalka u diyaar garoobaan waar miyaad ka hadhaysaaba lagu reer kilimsood la socota waan la socdaa isdifaaca buuri qayb baan idinka ahay gala dagaalka buuri difaaca gala difaaca ma hafrayo beenna ka samayn maayo waa xasan sheekh cali warsame markuu ka soo baxayna hawshiisii buu watay kale because kuwan wuu istaad raacinayaa markuu arkay dadkii inuu ka hor yimaadeen kuwa laakiin daacadda u yahay waa kuwa kale ee uu dhaarsan yahay xel baan u hayaa qarsoon tusaale kale cabdirashiid baaxeer oo guddida habar jeclo ku jira oo xubin sare oo ictisaamka ka mid ah oo ganacsade iska dhiga oo haddii alla kuu roon yahay aqoon-yahan iska dhiga oo intaasoo shaar gashada oo markuu hadlayay lahaa dagaalka laascaanood sidii huwanta isagoo hadlaya wuxuu ku dhacay tabasho iyadoo tabasho aan ku dhicin ee aynu ogeyn oo haddii tabasho ku dhacay dee la xalin lahaaba somalilan ay wadahadal labay tiri markii waxaana bilaabayeen ilaa bilow ilaa dhammaad wadahadalka waxaa loo diidanaa dee in ay fashilmaan waxa lagu dagaal galay wuxuu ahaa dadkaygii baa laysuun afka usoo dubatay somalilan iyo isaaq baa laayay kuwii dadka laayay qaar baa xidhan qaar baa iyagu dhaarsadeen qaar bay magti kala qaateen haddii la garnaqsado waxaasaa fashilmi lahaa oo been bay noqon lahayd waxa lagu dagaalgelinaya dadka marka in la wada hadlana iyagaa diiday cabdirashiid wuxuu ka dhigayay in somalilan dagaalka laascaanood ka dhacay ay iyadu ka dhaga adeegtay dadkii oo cadaalad ka doonayay iyo ka doonaya ay ka diiday ayuu ka dhigayay afkoodii baan ku hadlayay ninkaasi heerkaa gaadhay habeen hore markii shirka london la isugu yimi ee reerkoodiioo ka badan uu arkay oo dee in dalka la difaaco ay sax tahay oo nabadi aanay meeshaa olin wuxuu yihi waan idinla qaatay wax iska celiya oo dagaalka gala lacagtan igu soo qora runka ma aha dadka qaar baa shacabka u garaacay laakiin runka ma aha meel kale uu dhaarsan yahay inaan runka ahayna waxaa sheegi doonaa waktiga oo isagoo hadlaya ayaa la arki doonaa sida xasan sheekh oo kale xasan sheekh cali warsame marka nimankaasi waa niman dee kooban oo doonaya intii ka badnayd inay afduubaan waa niman xuduudii dalka doonaya inay ka dhigaan og waa niman xuduud cusub dalka inuu sameeyaan doonaya waa niman aaminsan dowladda firdhiye ee beenta ahi inay toodii tahay oo xaq tahay oo ay dowlad walaayad ay leeyihin islaam ay tahay ta somalilan ka dhisanna ay baadil tahay iyo bidco iyo gaalo ay yihiin bay aaminsan yihin haddana doorashay ka sheekeynaya dalkii bay xuduuddiisa dafirsan yihin somalilan bay dafirsan yihin haddana doorashay ka hadlaya marka aniguna waxaan ugu dhex jiray dee aqlabiyaddii shirka habar jeclo oo suldaan cabdilaahi suldaan cali oo suldaankii guuda la socota 90% la socota iyo in fara ku tirisoo in aftuubto doonaysa oo huwanta la socota ayuunbaa is haysta waxaa la isku haystaana waa somalilan oo la difaaco oo iyo huwanta isu dhiiba labadaa fikir baa iska riyaalla habar jeclo is haysataa ma jirto habar jeclo qurbajoogoodii oo dhowr boqoli oon qof ka maqnayn waa kuwii suldaan cabdilaahi taageeray waxaan anoo ka faa'iidaysanaya fursadda kula talinaya habar jeclo war nimankaa idiin badheedhay waa tiro kooban reer walbana way ku jiraan daacad idinma aha arrinta idin haysata ka xanqarsada adduunkaa iska ururinaysaan iyo qaadhaankiina way bajaranayaan iyo gacantooda gelin guddiyo ka beri ah ayaga oo ka madax bannaan wixiina iyo taladiina iyo arrintiina iyo adduunkiina haddii alla kuu roon yahay ha idin dhex marto ayaan ayaga iyo reer somalilan kalaba leeyahay iyo reeraha kale somalilan keligood maaha reer walba way ku jiraan haba lagu kala badnaaday anigu inta xaafadeeda ku jirta waan aqaanaa dee waan uga digaa way isnabayaan oo waan ogahay maalintii luqunta la soo baxaana sida kuwan uga hadlay baan uga hadlay marka afkaarta la isku hayaa waa somalilan intii difaacisay daacadda u ahayd iyo intii cid kale daacadda u ahayd kuweena soo weeraray la socotay
iminka waxaa laga sheegayaa ninkii maalintii reerkoodu shiray dagaalka la qaatay iyo difaaca la qaatay ee xasan sheekh cali warsame iyo ninka cabdilaahi baasha la yidhaayo raggii maalintii shirka burca la qabanayay dagaalansanaa ee inta ka badan islahaa afduuba labaduba waxay la sheegayaa inay ergaabo kula kulmayaan niman huwanta ah oo ay isku urur yihiin oo ictisaamka ah oo dhinaca kale ka soo jeeda ayaa la sheegay in ergaabo ku kulmayaan oo kuwan deeqoon yar socodka ah ee haddana hawshooda hoosta ka wataa marka dagaalka toos bay ugu jiraan ololay wadaan kii xisbiyadu marka ay doorashooyinka gelayaan oo kale ay wadi jireen bay wadaan burca waxaa la sheegay in dumarrayowgii iyo carruurtii ay u weeraaranayaan ragga oo ay leeyihiin dumarkii wacyi gelinayaan oo muxaadarooyin u qabanayaan oo ay leeyihiin raggiina iyo inamada dhasheen cishada yacni ololay wadaan ololahaana in laga hortago oo dowladdii shicibba laga hortago in yaroo kooban oo aynu garanayno ayaa intii badnayd in afduubto oo ay cadowga u dhiibto oo ay lugta u qabato isku dayaysaa marka waxaan leeyahay yaan la fudeydsanin somaliland way guulaysanaysaa huwana waa laga guulaysanayaa siyaasiyanna maanta way ku oodan tahay oo haddii alla kuu roon yahay waxba islama hayaan military ahaana somaliland tallaabo way qaadaysa xuduudeedana ku noqonaysa dhowaan haddii alla idhaa laakiin waxaa kala baxaya wixii ishuursanaayo oo isdhex fadhiyay baa kala baxaya oo bur iyo biyo ayaa loo kala baxaya daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Ibraahim Caydiid oo waraysi gaar ah kala yeelnay xaaladda guud ee Somaliland iyo tan mandaqadaba tan iyo kulan dambe dhamaantay baad Arabsiya News waxaan idinkaga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh